Warshiiq waxaa laga soo warinayaa dhacdo aad u xanuun badan kadib markii hooyo umul ah iyo laba caruur ay dhashay halkaas ay ku dileen dabley hubeysan loona maleynayo aanooyin dhanka qabiilka ku saleysan dhacdooyinka noocaan ah ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe maalmihii dambe waxay ka hayeen kuwa isdaba joog ah inta la xaqiijiyay 3 qof ayaa lagu dilay sidoo kalena tiro kale waxa soo gaaray dhaawacyo kadib weer xalay ka dhacay duleedka degmada Warshiiq ee Shabeellaha Dhexe weerarkaasi waxaa fuliyay koox hubeysan waxaana lagu dilay hooyo umul ahayd oo cunugga dhashay 40 cisho wali aan gaarin oo umusha kula jirta iyo wiil ay dhasho 3 sano jir ah iyo mid kale sidoo kale kooxda ayaa waxay dhaawacyo u geysteen hooyo kale iyo wiil ay dhasho isla ku sugnaa guriga weerarku ka dhacay oo ku yaala meel aan ka fogeen degmada Warshiiq ee Shabeellaha Dhexe inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambaysa weeraradan haddana waxaa la xiriirinayaa aanooyin qabiil oo waayihii dambe ka taagnaa degmada Warshiiq iyo xeyndaabkeeda oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan weerarada noocaan ah ayaa muddooyinka dambe ku soo badanayay Shabeellaha Dhexe 2 bil ayaa laga joogaa markii 17 September sidaan oo kale isla koox hubeysan ay weerar ku dileen 6 culimo oo macallin Qur'aan ah oo dugsiyada Quraanka ka dhiga degmada Cadalle ee Shabeellaha Dhexe waa duleedka degmada Raagaceel ee Shabeellaha Dhexe falkaasi ayaa la sheegay in wali uu daba socdo aanooyinka qabiilka ee Shabeellaha Dhexe ka jira maamulka degmada Warshiiq oo aan la xiriirnay ayaa badi sheegay in xogogaal badan aysan u ahayn dhacdadii halkaasi ka dhacay inkastoo maleeshiyaadka dilka geystay qaab qabiil u abaabulaa la sheegay inay baxsadeen kuwaas aan wali gacanta lagu soo dhigin weerarkan waxaa geystay maleeshiyaad guryahooda ugu tagay dadka isku qoyska ahaa sidaasi waxa inoo sheegay xogayaha degmada Warshiiq Cabdullaahi Raagi Cali oo la hadlay warbaahinta Risaala Cabdalla waxa uu sheegay in ay baaritaano ay wadaan ayna hubinayaan siday wax u dhaceen asagoo sheegay in ay qiyaasayaan falka inuu la xiriiro aanooyinka qabiilka ah waa maqantahay Risaala ma santiin aniga hadda degmada jooga aan kula hadlaayo dhacdo runtii aad u foolxun oo runtii aad u lahayd oo ma aragtay dad barnaamijyada ah loo geystay oo masaakiin ah loo geystay kulay meesha ka dhaceen ma aragtay waa magaalada banaankeeda waa meel ma aragtay hood ah oo ma aragtay oo hawaasa dur waaye shaalgaad maanta wax ka dhaceen waa milki fog waaye oo deegaan la yiraahdo xaluule ee dhacdadan ka dhacday oo ma aragtay dad oo iska tuuga isku moodiyaan ay geysteen waxaan runtii maamulkan aad ugu xun yahay howlgala wadnaa oo idaartaana wadnaa oo arrinkan ku xaqiijinayna waan gartay marka qoyska dilka loo geystay marka tiradooda imisay ahayd dilka waxa loo geystay 3 qofood dhimatay 2 dhaawac ahayd hooyo iyo 2 caruur dhimatay maamo iyo hooyo kalena ma aragtay iyo cunug kalena dhaawac waaye 5 qofood oo wada 2 dhaawac iyo 3 dhimasho waaye waan gartay marka sida wararka aan ku maqalnay waxay sheegayaan in kooxdii dilka ay geysatay in ujeedkoodu uu ahaa in aanooyin qabiil ay u dileen dad qoyskaasi arimahaas marka maxaa qiraysan adinka anigu horta deegaanadaas horay waxa ugu soo laabtay oo dhowr mar la isku day in la xalliyo dagaalo la xiriira aanooyin qabiil dhowr mar ay soo laabteen dhowr mar ay ka dhaceen dhacdadan xaalad dhacday xitaa anaga aan qabiil lana kuma tilmaami karno waa wax aan qabiil ka weyn weeyaan oo wax ma aragtay doqonnimo wax ma aragtay arxad daran sababtoo ah waxa in haween iyo caruur 3 jir iyo la dilo inaa wax runtii aad looga xumaado waaye marka arrinka cadeynta cidda sida dhabta ah ugu dambeysay falkii waxaan xaqiijinaynaa daaritaanka markoo noo soo dhamaado kadib waxaan xaqiijinaynaa ama haddii aanooyin qabiil noqoto haddii qaab kale ay noqdaan bal waxaan xaqiijinaynaa aanooyinkaas qabiil waa tuhun weeyaan laakiin kaga soo bixiyayna haddii la yiraahdo dabcan maamulku waa dareemi kartaa maamul degmo heshiis la gelin karo dil joogtanaysa waa heshiis ma aragtay oo naga dhaxeeyo ma jirto degmadu waa degmadka ordan oo bulshada loo sameeyay maamulka Shabeellaha oo kale maamul awood badan wala ma ahayn degmadu wax ciidan ah oo booliis ah oo u shaqeeyo oo awood leh oo ma aragtay hooshii markaas dhacdo hore ka qaban kara ama deegaanada loo qeybin kara malahan ciidanka federaal ee federaalka ka tirsan oo ma aragtay deegaanada toos ugu howlgalo
oo maaragtay shaqada qabto ma jiraan dhacdooyinkan oo kale markay dhacaan maxkamadda ciidamada qalabka sidoo loo baahnaa in howlo adag ay ka qabato kama qabato marka awood darro jirta awgeed ayay kooxahan u faa'iidaystaan waxaana keenaysa inay kooxahan faa'iidaystaan dhibka keenaan in awood ballaaran oo oo fulineed inaysan meesha ka jirin oo maaragtay isteedka iyo kan oo warshadaado waan gartay marka dilka ka dhacay meel u dhow degmada Warshiiq baraha bulshada iyo dad badan ka argagaxay dhibaatadaas qoyskaas loo geystay adinka ma ku tala jirtaan kooxihii dilka geystay inaad gacanta ku soo dhigtaan anaga ku tala jirnaa waana wadnaa dhaqdhaqaaqyo wadnaa oo aan rabno maaragtay ina ku soo qabano kooxihii aan dililka arxan darada geystay mana ka heereyno gacan adagaan lagu soo qabanaa haduu ilaahay raali ka noqdo maaragtay si walba ay noqoto kooxahaas waa gacanaa lagu soo dhigi doonaa maaragtay waana ku leerajeeynaa in la aqoonsado baaritaankoodina waa socdaa mar labaad baaritaanka ka hor dhaco waa gartay marka gudoomiye waxaa rabaa ugu dambeyn aan ku weydiiyo degmada hore waxaa loogu dilay culamo aanooyin qabiil loogu dilay haddana qoyskana la dilay ma ku tala jirtaan in halkan aad soo habjartaan waa ku tala jirnaa hadda waa qorshaheena maaragtay in howlahan lasoo afjaro qaadka u macquulsan lasoo afjaro anagoo rajeeyayna weliina aada ugu kaashan doono garab weyn ee naga sii doonaan maamulka cusub ee haddii sii imaan doonaan in howshaan garab weyn nagu siiyaan arrinkan ay nagala shaqeeyaan marka laga soo tago hadalka xogayaha degmada Warshiiq ee Shabeellaha Dhexe maalmihii dambe waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo la xiriira badanaaba aanooyin qabiil Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaysa qorshe doorasho oo maamulkaas haddana dhinaca kale ma jiro cid isku xil saartay wax ka qabashada weerarada noocan oo kale waxaana la xasuustaa 17 bishii September ee ka soo gudbnay sidaan oo kale lix macallimiin oo dugsi Quraan wax ka dhiga culimo ah lagu dilay duleedka Raagaceele taasoo la xalin ayaa haddana xiisada Warshiiq ay ku sii darsantay ilaa intee ay sii socon doontaa in la beegsado dadka aan waxba galaabsan ee barnaamijyada qaybta hoose ee committee-ga yaa daawaday aragtidaada nagu la wadaagi kartaa daawade ku soo dhawow channelkeena YouTube-ka ee xogta fanka halkan waa meesha kaliya aad ka heli karto macluumaadka la xiriira arrimaha fanka iyo waliba fanaaniinta sheeko walba la xiriirta arrimaha fanka ayaa daawada halkan ka heli kartaa waxaan sidoo kale halkan aan ku baahinaa muuqaalo xiiso badan aan isleenahay waa kuwa mudan in daawadayaashan u soo bandhigno mar walba channelkan xogta fanka wuxuu idin soo bandhigayaa muuqaalo xiiso badan arrimaha fanka madadaalada sheekooyinka xiisaha badan dhacdooyinka ugu waaweyn ee fanaaniinta taariikhaha fanaaniinta aan soo qaadano kubii hore kubii dhexe iyo kubii dambe dhammaanba daawade halkan ayaad ka heli kartaa ka mid noqo saaxiibada channelkeena xogta fanka adiguna raacaya tilmaamtan subscribe gambalelkana taabo qaybta hoose ee committee-gana mar walba ayaa daawade nagula wadaagi kartaa aragtidaada كربي مقيسة